السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ardayda iyo dadka kale ku xiran baa channelkeena casharada caafimaadka waxaad ku soo dhawaataan lesson-keena labaad ee ahaa first year-ka anagoo lesson-keena koobaad ku soo qaadanay qayb kamid ah Dictors ABCD oo ku qaadan doono maantana qaybtii ugu dambeysay breathing neefsasho ayaa kamid ahayd Dictors ABCD. breathing check for breathing saddex badiyeegaysaan saddex waxyaalood look listen iyo feel saddexaas adiga dhexeegaysaan meesha. check for breathing marka hore neefsashadiisa hubi by looking adoo eegaya for chest movement laabtiisa qofka u fiirsanaya dhaqdhaqaaqa marka laabtiisa sameeyso marna up tagaysaa oo xagga sare marna down laabtiisa marka u fiirsanaysaa wada eegaysa. listen dhageyso by putting your ear adoo dhegtaada dhigaya near meel u dhow to their mouth afkiisa and nose iyo sankiisa. feel waa inaad dareentaa for breathing neefsashada by putting adoo dhigaya your hand gacantaada on the lower part of their chest laabtiisa adoo dhigaya gacantaada marka waa inaad dareentaa neefsashada waa inaad dareentaa. if hadii the person qofku is unconscious umirkiisu markaa joogin but breathing laakiin neefsanayo turn them to the side dhinaca u dhig carefully si taxadar leh ensuring that you keep adoo markaa ilaalinaya their head madaxiisa neck qoortiisa and spine iyo xanguliyaashiisa in alignment marka qofka si wada jira adoo intaas oo dhan wada haya aad si wada jira qofkii ayaan markaa u jeedinaysaa dhinaca u dhigaysa. monitoring waa inaad monitor gareysaa ama si ilaalisa their breathing neefsashadiisa until you hand over to the ambulance illa ambulance marka aad dirsatay ay kaaga imaanayso. CPR waa qaybta CPR waa qayb kamid ah Dictors ABCD waxaana dhaca cardiopulmonary resuscitation baa lagu macneeyaa. if ana dhaltay hadaba qofdii qofka qaangaadhka ay unconscious mirkiisu joogin aan not breathing on neefsanayn make hubi sure they are flat inay meeshu markaa ku tahay meel siman on their back meesha markaa uu jiifo qofkaas hadii meeshu ku siman tahay meel siman tahay markaa iyadoo waa inaad eegtaa ama wada hubisaa. and then place the heel of one hand kabacdi waa inaad markaa hal gacan markaa waa inaad ka saartaa in the center of their chest xabadka bartankiisa waa inaad hal gacan ka saartaa and your other hand gacanta kalena on the top waa inaad ka sarreysiisaa. press down family and smoothly cadaadis baad markaa saaraysaa waxaan ku sii macnay wuxuu ku leeyahay compressing to 1/3 of their chest depth waxaad cadaadinaysaa ilaa 30 times 10 jeer baad cadaadinaysaa. give to breath laba jeerna waad naqaskaga markaa ku afuufaysaa ilaa qofkaasi markaa kaga soo kacayo. defibrillatorku are referred waa qalab that restore a normal heartbeat kaasoo markaa lagu soo celiyo wadna garaaci qofka sidiisi normal ka ahayd by sending an electric pulse marka waxaan u diraa electric pulse or a shock to the heart marka wadnaha ayuu electric pulse u diraa. they are used waxa loo isticmaalaa to prevent uga hortago or ama correct u saxo an arrhythmia heartbeat ka marka wadna garaaca marka ama saaidka noqonaya ama noqonaya lowga noqonaya ama fastiga u degdegaya inuu normal ka dhigo ayun baa lagu saxaa. waa kana daba soo cashar caadi ah. defibrillator wuxuu ugu jiraa Dictors ABCD waa qayb kamid ah ku jirta for unconscious qofku markuu mirkiisa leeyahay dhart qofka qangaarka markuu bilaamir noqdo who are not qofkaasoo breathing and neefsanayn apply garee an automated external defibrillator kaasaad ku xidhasaa if one is available marka hadad haysato waad ku xidhasaa. waa ka sawir ahaan hadalka idinku jeedo AED waxa qofkaasoo ku xidhan hagaan idinku jeego. lesson 2 halkaas ku dhamaaday la soco lesson-keena saddexaad mahadsanid.